amniga iyo taliyayaashiisa ciidamada garaabo walba hala haadaane iyo gobolkii banaadir intaasaa isugu timid sooma oo guddoomiyuhu ugu yahay waa mahadsantihiin intiinaasiba inaad igu casuumteen halkan inaan imaado runtii caawa waxaa farxad weyna in intaan oo ka socota mas-uuliyiin kala duwan ama gobolka ama wasaaradda ama taliyayaasha inay isugu timaadeen inaad ka tashataan sidii amniga magaalada wax looga qaban lahaa waa wax runtii aan dhihi karo iyada lafteedu waa tallaabadii ugu horreysay ee horumarka ee wax looga qaban lahaa ee gobolka banaadir amnigiisa waxaa kaloo aan aad yididiilo uga muujinayaa in madaxdii taliyayaasha ciidamada iyo wasiirkii iyo guddoomiyihii gobolka ay iska soo wareejiyeen awooddii ay ku soo wareejiyeen guddoomiyaasha degmooyinka iyagana aan rajayn doono inay ku soo wareejin doonaan guddoomiye waaxeedka iyo guddoomiye laamaha haddii laa yidhaahdo waxaa muuqato dowladnimo dowladdii ku koobneed xafiiska madaxweynaha ayaa waxaa u muuqata hadda inay shacabka gacanta u soo geli rabto waa wixii aan sanad ka hadlaynay in marka taliyaha booliska intuu soo istaago uu yidhaahdo waxaan rabaa guddoomiyaha laanta ama guddoomiyaha degmada in ciidanku ka amar qaato in halkan laga akhriyo awaamiir in guddoomiyaha degmada lagula xisaabtamayo degmadiisa waxa ka dhaca ciidamada degmadaas joogana isaga ay ka amar qaadanayaan waa wixii aad weydiinayseen sanadihii lasoo dhaafay maantay gacanta idinkugu jirtaa annagana qalinkii aan idinkula xisaabtami lahayna gacmaha noogu jira marar badan ayaa waxaa lalahaa gobolka banaadir waa inuu amniga ka shaqeeyaa maanta waxaa fal galay taliyayaashii iyo wasiirkii guddoomiyeyaashii degmooyinka guddoomiyaha gobolka banaadir ku-xigeenadiisii xafiiskii madaxweynaha xafiiskii ra-iisul wasaaraha golihii wasiirada waxaa loo soo jeestay in amniga magaalada muqdisho wax laga qabto laakiin waxaan rabnaa inaan ka guurno amnigii ahaa markay wax dhacaan in wasiirka ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha su-aalo la weydiiyo waxaan rabnaa su-aaluhu inay ka soo bilowdaan meesha ugu hooseysa oo ah guddoomiyaha degmada waaxda uu joogo ugu hooseysa sidoo kale waxaan rabnaa ammaanteeda idinku inaad qaadataan oo guddoomiyaasha degmooyinka iyo waaxaha iyo laamuhu ay ku tartamaan xaafad walba amnigeedu siduu yahay waxaa la rabaa inaad su-aalaha aada weydiinaysaan guddoomiyaha gobolka banaadir iyo taliyayaasha iyo wasiirada inay yihiin agabka aada u baahan tihiin iyo ciidamada aada u baahan tihiin iyo qalabkooda ma la idiin soo dhammaystiray laakiin waxaan rabnaa xaafad walba oo ka mida gobolka banaadir inuu joogo ciidan ku filan inay joogaan dad isxilqaamay oo ka socda darisaynta idinku aad abaabisheen oo qayb ka ah ciidanka waxaan rabnaa xaafad walba oo gobolka banaadir ka mida haddii qof cusuba ay ku soo saaido in la ogyahay qofkaasi waxa uu yahay haddaan la ogeyna in xabsi lasoo dhigo ma rabno waktigay ahaa jirtay in magaaladana cid walba iska joogto qof walba magaaladana way u furan tahay laakiin waa inaan ognahay xaafad walba qofka joogto qofka ay tahay sababtoo ah hooyooyinkeen iyo walaalaheen iyo carruurteenna ma rabno inaan khatar dambe ku fiirsanno kuwii khatarta ka ilaalin lahayna waa idinka arrinka labaad waxay tahay magaalada muqdisho waa astaantii qarannimada soomaaliyeed waa magaalo madaxdii waddanka soomaaliyeed ku dhowaad 30 sano oo dalka dhibaata ay ka jirtay waad ogtihiin carruurta dalka dibaddiisa ku dhalatay marka ay rabaan inay wax ka bartaan dalkooda waxa ugu horreeya bartaan waxa ugu horreeya magaalo madaxdii sidaas aheedoo idinku aad degantihiin oo carruurtiina ay degan tahay waalidkiina ay degan yihiin inaan aqbalno inaan ku fiirsanno sanad walba in dad lagu laayo annaga ayay damiirkeenna wax ka sheegaysaa
haddii marka aad rabtaan inaad qarannimada soomaaliyeed dib u dhistaan in sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed la soo celiyo in waddanka horumarkiisa laga shaqeeyo tallaabada ugu horeeya oo nala ka rabo waxay tahay magaalada muqdisho oo ah caasimaddii in amni laga dhigo maanta waxaa laydin siiyey marka fursad gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka iyo dhammaan inta ka hoos shaqaysa waxaa la idin siiyey fursad ah in taliyayaasha ay hortiina ka hadleen ay yidhaahdeen idinkaan awoodda idinku soo biirinaynaa idinkaa indhihi ah idinkaan idinla shaqaynaynaa si amniga loo sugo waxaan rabaa mas-uuliyaddaas inaad u qaadataan si dhab ah amniga lama sugi karo haddii dadka degan degmooyinku aanay u soo istaagin amniga haddii shacabka iyo dowladda aan la isu soo dhoweyn shacabkii cidda dowladda ku soo dhoweyn lahayd idinka waay idinku marka waa inaad marka ugu horeysa aamintaan dowladnimadiinna idinku waa inaad aqbashaan kuwa idinka hooseeya inaad la xisaabtantaan idinkana laydinla xisaabtamo idinkuna aad kuwa idinka sarreeya ka shaqaysaan qaabkii loola xisaabtami lahaa sababtu waxay tahay magaalada amnigeeda marka aad sugtaan ayaa shacabku aqbalayaan shaqada aad u haysaan haddii laakiin sanad walba ay dadkeennu ku baaba'aan oo maalin walba qofna la ka dilo oo guryaheennii iyo ganacsigeennii la qarxiyo oo adduunyadii ay ka baqdo magaalada muqdisho inay timaado oo sawirka dalkeenna laga bixinayo uu yahay sawir xabad iyo qarax carruurteenna waxaan uga tagna ma hayno sanaday nagu qaadatay inaan isku soo dhoweyno oon keenno meesha maanta ay joogto waxaan aaminsanahay oon kulligiin idinkaga mahad celinayaa in maanta aad taagantihiin meeshii ugu wanaagsanayd laakiin dowladnimadu waxay tahay guddoomiye waaxeed ama laameed oo qaatay mas-uuliyad ka dheer kuwa kale waa xaafadaas abaabushay oo tiri mar dambe ma aqbalayno in dalkeenna la dumiyo waa hooyooyin isu yimid oo yidhi ma aqbalayno shabaab carruurteenna leynayo waa guddoomiye yidhi ma aqbalaayo musuq maasuq ma ka yeelaayo kuwa iga hoos shaqeeyo mana ka yeelaayo guddoomiyaha gobolka banaadir mana ka yeelaayo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ha ka sugina dowladnimada cid kale dowladnimada idinka waaye 90 maalmood oo aan u qabannay wasiirka iyo inta ka hoos shaqaynaysa iyo guddoomiyaha gobolka banaadir waa 90 maalmood aan ugu talagalnay inaan kula xisaabtanno shirkan maalintii ugu horreysay aan qabanayno waxaan ku yidhi waxaan u baahanahay in la ii keeno xamar oo amni ah ama in la ii keeno ciddii mas-uulka ka ah in magaaladii amni noqon weysa annagu waxaan ballan qaadaynaa wax walbo agab ah ood u baahan tihiin inaan idinkala shaqayno meel iska dhiga minjeclaysiga meel iska dhiga degmada meel iska dhiga qabyaaladda meel iska dhiga shakiga iyo kala qoqobnaanta u midooba inaad badbaadisaan dhiigga walaalihiin hooyooyinkiina iyo aabbihiin u midooba inaad soo celisaan sharafta iyo karaamada magaalo madaxda aada mas-uuliyiin u tihiin u midooba dunida iyo dadka soomaaliyeedba inaad tustaan soomaaliya way soo noqotay iftiinkii iyo sharaftii magaalada muqdishona way soo noqotay amniga magaaladana ilaahay ka sokoy idinkaa ka shaqeeya idinkaa ka mas-uula waa mahadsantiin wasalaamu calaykum